anigoo ah Cabdiqani Axmed Jaamac waxaan halkan bulshada Soomaaliyeed uga soo jeedinayaa in aan la wadaago dulum iyo xasuuq la geystay oo ii geysteen reer waxa weeyaan gabadh ka qabo oo ah reebiciyaan reer Xaamid anigoo ah nin sadad daarood ah oo Mariixaan ah oo ii geysteen arin habsooc ah gabadha reerkaasi ay u geysteen ilmahaygana ay u dileen oo haddana ay ku indoonayaan ilmahayga anaga dilnay oo ilmahaygana uu dilay wiilka abtagiisa waxaana la yiraahdaa ninkaas magaciisa waa Ciise Cabdiraxmaan Xuseen Ciise ayaa baa la yiraahdaa gabadha la dhashay oo hadeertana waxa weeye aad iyo juglanay haween maalinba oo ilaa waan ku dilayaa gabadha ayagii waxa weeye noofur ma geysid waxa weeye arintaasi waxaan soo bandhigayaa ugu horeen madaxda Puntland ugu horeeya madaxweynaha ku-xigeenka madaxweynaha dan wasaaradda cadaaladda maxkamadda cadaaladda hay'adaha xuquuqul insaanka iyo ismada dhaqanka arintaasi in waxa weeye lagu sameeyay arin heebu socda oo ah gabadha ayaga ma geysid anigoo ah nin gayaankeeda gabadha aan qabo ah oo la garanayo waxa weeye dulamkaas la galay oo walaalkeed gabadha hadeertan ku dhaaranayo ilmaheegi isaga inuu dilay xaaskaygana hadeertu waxa weeye sidii qof waalintii ka dhigeen ee meel ku xireen oo leeyahay gabadha way waalan tahay waxa weeye macnaha waxa weeye ani iyo xaaskayga reerkaasi waxba inoo soo kala reeban oo reerkayga waxa weeye reerkaasi aad waxa weeye dulum weyn waxa weeye shariicada islaamka waxa weeye Israa'iil kan inoo geysteen oo hadeertana walaalkeeda garowga la joogo leeyahay waan ku dilayaa isagoo ilmahaygana dilay oo haweeney maalinba waxa weeye macnaha ay waan jabaya marka waxaan arintaasi u soo bandhigayaa dhammaan ummadda muslimka waxaan u baahanahay qaasita aniga nasaanteeda cadaalad baan u baahanahay xaaskaygana waxa weeye dulum hadda leega haysto ilmahayga la dilay oo iyada hadeerta macnaha waxa weeye ilmaheeda la dilay ajligeeda waxa weeye arintaasi wax ka ogtaa ajligeeda qaab u marayso meel ugu xiran tahay oo waxa weeye oo iyadana waxa weeye la leeyahay way waalanta laga been abuuranayo iyadoo xayi ah anigana nafteeda waxa weeye hadda halis ugu jirto walaalkeeda gabadha igu dhaaranayo haweeney maalinba marba waxa weeye oo mid telefoon igu soo dhiibayo leeyahay dhinka dilayna wa billahi tawfiiq